Distinguished guests, the airport hotel will be consisting of 4 floors, 72 luxury rooms, 6 suite rooms, conference rooms, meeting rooms, restaurant, race cafe, and car parking area. This hotel, which also compatible with Aden Abdullah International Airport, is going to be a new symbol for the improvement of Somalian economy and business life. The new car parking will have 100 vehicles capacity. The new modern shopping center will consist of 24 modern shops. And the new green park will be constructed behind the terminal side for the public benefit. The ramp will be expanded and second taxiway will be constructed to reduce the risks at MIA and civil aviation section. It will not only help to raise the transportation movement, but also improve our partners' airlines business capacity. For this opportunity, I would like to thank you who always supported us, His Excellency Minister of Transportation and Civil Aviation, Mr. Muhammed Abdullahi Salat, His Excellency Olgan Bekar, Turkish Ambassador to Somalia, and Director General SCAVA, Mr. Yusuf Abdi Abdullah, and other stakeholders. They really played a great role during the period. I wish may Allah help us to finalize those investments in the given deadline. Thank you very much. Mahad Senate. Relationship between Somalia and Turkey, please welcome and waxaan hadda u yeeri doonaa ambasadorka Turkiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bu vesileyle aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga inaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan idinla joogo. Bugün Somali Mogadishu Havalimanı'nın altyapısının daha da güçlendirilmesi için çeşitli projelerin aynı anda başlatılmasına tanık olacağız. Maanta waxaan goobjoog u nahay mashaariic qayb ka ah ballaarinta iyo horumarinta airportka Muqdisho. Havalimanı bir şehrin, bir ülkenin imajının oluştuğu ilk yerdir. 2011 yılında, 2012 yılında eski terminal binasına girişle daha sonra yapılan yeni terminal binasına giriş arasındaki farkı yaşayanlardan biriyim. Airportka sidiisaba waa wejiga dal walba. Qofka markuu wadan galayo waa meesha ugu horeysa ee wadanku ka soo galo waa airportka. Sidaas daraadeedna ayuu muhiim u yahay. Aniga waxaan goobjoog u ahaa oo aan arkay airportkan 2012kii qofkii imaaday wuxuu arkayay iyo hadda farqiga u dhaxeeya waa goobjoogan u ahaa. Yeni terminal binasının insanlar üzerinde bıraktığı olumlu duyguları bizzat yaşamış birisiyim. Eminim ki bu gerçekleştireceğimiz, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte Mogadishu Havalimanı'nın altyapısı çok daha gelişecektir. Terminalka oo airportka ee la dhisay markii la dhisay kadib waxaan arkay waxa waaye falcelinta ama feedbacka oo positive-ka ah ee shacabka Soomaaliyeed ka yimid. Waxaan rajaynayaa mashruucan hadda hotelka marka la dhamaystirana mid la mid ah feedback ama falcelin oo positive inay ka imaan doonto oo aad ay u soo dhaweyn doonaan. Excellency Olgan Bekar, Turkish Ambassador. Waa aad u mahadsan tahay Turkiga ambassadorka Olgan Bekar. I would like civil aviation and Excellency doona wasiirka iyo duulista iyo gaadiidka Maxamed Cabdullahi Salaad.
بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan rabaa inaan mahad u celiyo ambassadorka dawladda walaalaha aan nahay ee Turkiga, Ambassador Olgan Bekar, maareeyaha hay'adda Iskaama Yusuf Cabdi Cabdulle, Hakam iyo civil aviation ka dhammaan airportka qolada ka shaqeysa dhammaantood. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay mashruuc maalgelin ah in aan halkan ka hirgelino ama aan ku furno aan ku daafurno. mashruucani waa mashruuc hore loo ansixiyay, dawladihii naga horeeyayna ay ansixiyeen, dawladda Turkigana ay runtii ku daba jirtay in mashruucaasi halkan laga hirgeliyo. waa mashruuc ilaa iyo hadda intaan ognahay lacag ilaa iyo $10 milyan ay ku baxayso, $10 milyan ay ku baxayso. hoteelka wuxuu abuuri doonaa shaqaaleyn dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka wax soo bartay. dad tiro badan ayaa hoteelkaasi laga shaqaaleyn doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaa kaloo ku jira parking, waxaa ku jira dukaamadaasi ma laha shirkadu ma lahaan doonto, dawladda Soomaaliya ayaa iska lahaan doonto shopping mallka ay shirkadda ay dhisayso. Thank you very much, the Minister of Civil Aviation and Transportation, Mohamed Abdullah Omar. aad baad u baahsan tahay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, Mohamed Abdullah Omar. haddastaan xafladeeni gabagabada ayaan joognaa. marka kasoo qabshan xafladani oo ay furitaanka ahayd. I would like to thank you everybody who coming to enjoy it. And now it's time to close the program. So thank you very much, everybody. Hakan Bey. Ben çağırtırıyorum. Getiriyorlar. Bunları çektirelim mi? Evet, tutuyorlar arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Getirin onları. Allah. Evet oraya. Murat Bey orada kalabilir. Biraz Bayraklar VIP, hepsi VIP. Kamyonu çek, insanlar VIP, öbürleri kampa.
forward check. Huh? You forward check.